السلام عليكم فيلمku waxa uu ku bilaabmayaa nin oday ah kaasoo lagu magacaabo Rich waxa uu isku sugnaa meel baar ah isagoo go'aansanay inuu iska dhaafo duulimaadka waxaan ogaanaynaa inuu yahay duuliyad diyaaradeed dhanka kale waxaan arkaynaa pilot kale isagana kaasoo lagu magacaabo Ben waxa uu la hadlayaa xaaskiisa taasoo magaalo kale ku noolayd waxayna u sheegaysaa inuu si dhaqsi ah u yimaado maadaama uu wiilkooda xanuunsanayo waxa uu u sheegayaa inuu shaqeynayo inta kadibna waxaan arkaynaa inuu ka xumaaday xanuunka wiilkiisa kadibna waxa uu soo aadayaa garoonkii uu duulimaadka ku sameyn lahaay halkaasna waxaan lagu barayaa nin kale oo lagu magacaabo Dan kaasoo cabtooy waxa uu soo cabay dhamaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha Dan intuu joogay garoonka waxa si kama ah uga damay telefonkiisa isaguna waxa uu gelinayaa charger ciladaysan waxaan arkaynaa nin kale oo lagu magacaabo Tiglaan iyo gabadhiis ah taasoo lagu magacaabo Koora waxayna aabaheed u sheegaysaa inay ka cabsanayso inay raacdo diyaaradda intaas kadibna waxa goobta imaanaya duuliye Ben isagoo gabadheer niyada u dajinaya intaas kadibna waxa uu iskaga soo tagayaa goobta dhanka kale waxaan arkaynaa haweeney Shiineys ah taasoo lagu magacaabo Lily intii jidka ku jirtayna waxa isku dhacayaan nin lagu magacaabo Hat waxa uu isku dayaa inuu haweeneyda cabsi geliyo isla markaana waxa goobta imaanaya nin lagu magacaabo Sam waxaan ogaanaynaa Sam iyo Lily inay ahaan jireen saaxiibo hadda laakiin ay isku dhacsan yihiin dhammaan rakaabkuna waxa ay soo aadeen dhanka diyaaradda Ben inta uu hubinay diyaaradda waxa uu ogaanayaa inay cilad ku timid marawaxada diyaaradda isaguna arrinkaas waxba kama soo qaadayo intaas kadibna Ben iyo Rich waxa ay soo dhaqaajinayaan diyaaradda inta ay jidka ku soo jireenna waxa ay sheekaysanaya Ben iyo Rich laakiin Rich waxa uu si khaldan ula hadlayaa Ben taas oo ka cadhaysiinaysa Ben isaguna waa uu dajinaya isagoo u sheegaya inuu isla kaftamayo isla markaana diyaaradda waxa ku timid cilad kaasoo keentay in marawaxadii diyaaradda xumaato dhanka kale rakaabku waxba kama oga waxa ka jira qolka kookabka waxaana arkaynaa nin lagu magacaabo Matt isagoo daawanaya mid kamid ah shaqaalaha diyaaradda weynay timcad oo agtiisa fadhiday ayaa canaananaysa waxaan arkaynaa Sam inuu soo kacay dhankaas iyo musqusha kadibna waxa ayna la tusayaa in uu qarxay power bank uu isticmaalay ninka lagu magacaabo Dan kaasoo aan ku soo arkaynay bilowga muuqaalkeena waxay kadibna waxaan arkaynaa labada bilood inay ogaanayaan in diyaaradda wax ka khaldan yihiin waxaana diyaaradda ka kacaya dab Ben iyo Rich waxa ay wacayaan qolada gargaarka degdega ah inta kadibna Ben iyo Rich waxay ogaanayaan in uu dabku u dhameeyay labadii nin ee loo diray kadibna waxaan arkaynaa in ay diyaaraddu bilowday inay ruxmato isla markaana diyaaradda waxa ku soo dhacay mid kamid ah qalabyada diyaaradda ku xidhnaa kaas oo baabi'iyay kala bar rakaabkii dhanka kale waxaan arkaynaa Tiglaan iyo xaaskiisa inuu soo gaari dhaawac pilotkuna waxa uu sheegay dhammaan rakaabka waxa uu sheegay inay xidhaan oksijiinta isla markaana matoorka diyaaradda ama marawaxada diyaaradda ayaa meesha ku gubanaya waxayna bilaabaysaa diyaaraddu inay si iskeed isku dajiso ay kolba dhinac isku rogto kadibna diyaaraddu waxa ay ku soo degaysaa badda iyadoo ku socota xawaare badan isla markaana diyaaraddu waxay ku soo dhacaysaa dhagax aad u weyn kaasoo sababay in diyaaraddu u qaybsanto laba qaybood sidoo kale diyaaraddu waxay u kala jabaysaa laba qaybood waxaana halkaas ku dhintay qaybo badan oo dadkii rakaabka ahaa kamid ah markaana waxaan arkaynaa subaxdii markii la gaaray Lily oo kaligeed is aragtay ayadoo ku jirta badda inta kadibna waxa si lama filaan ah goobta u yimid libax badeed waxa uu soo weerarayaa Lily waxay ku badbaadaysaa si diriq ah waxayna eegaysaa dhaawacii uu soo gaarsiiyay libax badeedku inta kadibna waxaan arkaynaa pilotka diyaaradda ku dhex jiray inuu diyaaradda ku dhaxanimay inta kadibna waxaan arkaynaa pilot Rich inuu diyaaradda ku dhaxanimay isagoo bir culus ay lugta ka gashay waxaana u yimid laba qof oo kamid ah rakaabka labada qofna waxay ahaayeen Ben iyo Lily iyagoo doonaya inay iska saaraan birta laakiinse inta kadib Rich waxa uu sheegayaa inay iskaga tagaan goobta dhanka kale waxaan arkaynaa in ay biyihii muraayada si xoog ah ku soo jabiyeen ayna halkaas ugu dhameeyeen Rich inta kadibna waxaan arkaynaa Ben iyo Benny kuwaas oo ku jira qaybta hore ee diyaaradda waxayna rabaan inay badbaadiyaan naftooda isla markaasna Benny waxa ay soo tooraysaa badda ayadoo rabta inay nafteeda ka badbaadiso libax badeedka dibku waxa uu ka dhashay markuu libax badeedku yimid goobta Ben iyo Koora waxay isku dayeen inay u dhawaaqaan intii tabartooda ahayd laakiinse Benny maysan maqlayn Benny waxa isku dayaysaa inay ka badbaado libax badeedka inta kadibna waxa goobta imaanaya Ben iyo Koora waxayna isku dayaan inay badbaadiyaan Benny laakiinse nasiib xumo libax badeedku waxa uu dhameynayaa Benny intaas kadibna waxaan arkaynaa kooxda oo ku jirta qaybta hore ee diyaaradda ayagoo wada hadlaya waxa badda ku dhacaysa mid kamid ah dumarkii diyaaradda saarnaa halka ay Sam iyo Hat isdagaalayaan ayagoo ku jira xaaladaas xun intaas kadibna waxaan arkaynaa Lily oo kaligeed ah waxayna soo gelaysaa badda ayadoo ka cabsanaysa libax badeedka waxaana arkaynaa Lily inuu badbaadiyay nin kamid ah ninkii dadkii diyaaradda saarnaa inta kadibna waxa meesha libax badeed waxa uu u dhameeyay ninkii lagu magacaabay Joy ninka badbaadiyay Lily intaas kadibna mar kale waxa isku dhacaya Sam iyo Hat laakiin markan waxa isku dhex dagaalayaan diyaaradda dhexdeeda kadibna waxa goobta imaanaya Ben ee ahaa duuliyaha diyaaradda waxaana Hat ku canaanta qaladkiisa dhanka kale waxaan arkaynaa Matt in uu rabo inuu ka baxo u soo baxo banaanka marka uu banaanka u soo baxana waxa uu arkayaa Tiglaan oo dhaawac ah marka uu isku dayo inuu badbaadiyana waxa uu si dhaqsi ah u dilay libax badeedka inta kadibna waxaan arkaynaa Ben oo kooxda u sheegaya hadii ay rabaan in ay badbaadaan in ay isticmaalaan doomaha yaryar inta kadibna waxaan arkaynaa Koora oo kaligeed ah inuu libax badeedku weerar ku soo qaaday balse intuuna u dhameyninba waxa ka soo gaaraya Ben dhanka kale waxaan arkaynaa Sam oo badbaaday kaas oo saaran boorso Ben waxa uu rabaa inuu dadka badbaadiyo waxaana diidaya Dan waxa uu rabaa inuu Dan kaligiis baxo isla markaana waxa dhex maraya dagaal culus
waxaan arkaynaa ugu dambeyntii inuu Ben ku guuleystay inuu xakameeyo Dan. intaas kadibna goobta waxaa soo gaaray diyaarad helicopter ah taas oo u timid inay dadka badbaadiso. sidoo kale goobta waxaa timid doon yar taasoo ay wateen rag kalluumaysato ah. dhanka kale diyaaradda waxaa ka soo degtay haweeney aan ogeyn waxa goobta ka jira, islamarkaana Ben iyo tiimku waxay isku dayaan in ay haweeneyda u digaan, laakiinse marka ay biyaha u taabataba waxaa halkaas ugu dhamaynaya libaax badeedka. sidoo kale waxa uu dhameynaya diyaaradii u timid caawimaada. kooxda iyagoo ku dhaweynaya qoosnaan waxay meel fog ka arkayaan in uu marka badbaadaha u soo socdo, laakiinse waxaan ogaanaynaa inuusan ahayn marka badbaado uu yahay kalluumaysatada doonta ay wateen. islamarkaasna raggu waxa ay caawinayaan dadkii kasoo badbaaday shilka. waxaan arkaynaa inay dhammaan tiimka ku wada faraxsan yihiin badbaadada la badbaadiyey. sidoo kale waxaan ogaanaynaa tiimka intiisii badnayd inuu dhintay. Kora oo isticmaalaysa taleefankeeda waxay si lama filaan u ogaanaysaa in uu weli shaqeynayo signalka Feline, isla markaana waxay isticmaalayaan locationkeeda. waxa ayna soo badbaadinayaan Feline iyo cunugii yaraa. ugu dambeyntii waxaan arkaynaa dhammaan rakaabku inay ku faraxsan yihiin badbaadada iyo mar labaad ay wada kulmayaan. Ben waxa isagoo kaligiis ah waxa uu ogaanayaa in wiilkiisa laga helay cudurka kansarka, isaguna waa uu iska ooynayaa. waxaan soo gaarnay dhamaadka filimka. waad ku mahadsantahay daawashadaada. intaan filimka xiiso badan ku kulmayno sidaas iyo nabadgeliyo.